waa hagaag kusoo dhawaada BBC-da waxaynu idin haynaa wararkii ugu dambeeyay ee dilka loo geystay wariyaha weyn ee Sacuudiga ah jamal kashoogi wararka hadda soo baxaya ee soo gaaray ilaa maanta saacadihii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in shabakada CNN-ka ama idaacadda la iska arka CNN-ka ay soo tabisay muuqaal sir ah oo kaamarooyinka aan libiqsan ama CC cameraska ay duubeen ay muujinayaan in ninka lagu magacaabo Mustafa al-Madani oo kamid ah 15 nin ee howlgalka loo diray oo ka baxay ilinka dambe ee qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul isaga oo gashan dharkii jamal kashoogi xitaa ookiyaalkii wata garbeen abuura soo samaystay waxaana mudan ama in la sheego mudan in Jamal iyo Mustafa ay aad isugu egyihiin xagga jirka dherarka culeyska iyo wax kastaba waxaana la arkayay kaamarooyin kale oo magaalada gudaheeda ah oo muuqaalka la helay isaga oo dharkii iska bedelay isla markaasina bac ku riday dharkii Jamal oo meel uga tagay dharkaasina waxay u badan tahay ayaa la leeyahay inay booliska hayaan qodob kale oo soo kordhay sida telefishinka Turkiga ee NTV uu tabinayo ilaa 25 shaqaalaha Turkida ah ee qunsuliyadda ka shaqeeya ayay booliska iyo sirdoonka wareysteen kana qoreen warbixino sidii ay maalintaasi wax u dhaceen iyo wixii ay ogaayeen qodob kale ayaa wuxuu yahay in sida ay qorayso shabakada Middle East Eye arrimaha gobolka ka faallooto waxay leedahay in meydkii kashoogi lagu qaaday diyaarad qaas oo maalintaasi ka duushay Istanbul iyada oo la sheegay in ninka lagu magacaabo Mahir Abdiasiis Mudrib oo boorso weyn aad u weyn oo aanan la marinin baaristii garoonka Kemal Atatürk ee magaalada Istanbul uu la koray diyaaradda taas oo loo maleynay inuu ku jiro meydka jamal kashoogi sidoo kale amiir kale dhaxalka boqortooyada Maxamed bin Abdiasiis ayaa la sheegay inuu teleefanaareeyay ama teleefon kula hadlay wiilka uu sadaqa u yahay Trump Jared Kushner maalinkii ay ahayd 10 bisha oo markaasi uu Jamal mootanaa 8 maalmood oo kaliya sida ay qorayso shabakada Wall Street Journal ee ka soo baxday magaalada Washington ka soo baxda sidoo kale waxa la leeyahay in boqorka iyo wiilkiisa ay teleefanaareeyeen wiilka uu dhalay jamal kashoogi oo ay uga tacsiyadeeyeen wixii ku dhacay wiilkooda wixii ku dhacay aabahood wararkaasi iyo wixii ku soo kordha waan idin la socodsiin doonaa siyaabo kala duwan iyagoo video iyagoo muuqaal iyagoo sawirro ah adduunka oo dhan ayaa arrintan isha ku haya waxaana jirta in arrinta ay aad u sii kordhaysa maalinba maalinta ka dambaysa booliska Turkiga iyo madaxweynaha Turkiga waxay sheegayaan in wixii dhacay ay soo bandhigi doonaan hase yeeshee waxaa jira in jaraa'idka iyo wargeysyada iyo saxaafadda Turkiga oo dhan ay si tartiib ah u soo dusinayaan wararka ku saabsan baarista halka uu maray iyagoo soo xigay saraakiil sarsare oo aan magacooda la sheegin baarista ku lug leh waa saxan soo xidhin leh nabadgelyo